xalay gacanta ciidanka dowladda sababsaday sidoo kale waxaan tacsiyo u dirayaa mahad oo isagana caawa shilkaas shil la mid ah ku dhintay ilaahay waxaan uga baryaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo qoyskana sabr iyo iimaan oo ka siiyo intaas kadib sida uu sheegay afhayeenka ciidanka booliiska waxaa ilaahay mahadiis ah shilkaas nimankii gacan ku dhigliyaasha ahaa ee geystay shilkii xalay iyo shirkii caawa labadaba inaan gacanta ku hayno sida ugu dhaqsiyaha badanna aan u marsiin doono baaritaanka iyo aan u gudbi doono hay-adaha garsoorka ee ku shaqada leh waxaana rajaynaynaa in laga qaado tallaabo tusaale u noqota in askari dambe aanu dadkii loo xil saaray inuu ammaankooda ilaaliyo oo canshuurta iyaga laga qaaday mushaar looga dhigayey aanu sida ka muuqato bajaajtaas aanu xabad sidaas ugu gelinin dadka shacabka ah taas yaan ilaahay maaragtay yaan ballan qaadaynaa waxaan ka xunnahay runtii arrinta xalay dhacday iyo arrinta maanta dhacday labaduba waa laba fal oo aan cudurdaar lahayn cudurdaar male waa qalad dhacay waa qalad amniga ka dhacay waa qalad aan qirsannahay inuu naga dhacay waa ka xunnahay waa ka shalaynaynaa waa ka qoomameynaynaa waxaan rajaynaynaa in aanu mar kale dhicin waxaan codsanaynaa dadka Soomaaliyeed waa ka warqabtaan waddankan iyo ciidamadan iyo meesha laga soo bilaabay mararka qaar waxaa dhici kara tababarkii la rabo in ciidamadu qabin waa iska qeys kartaan wax badan baa weli naga kala daadsan waxaan gaari doonaa maalin aanay shilalkan oo kala dhicin waxaan rabnaa marka in sidii hore aan u sheegay ayadoo aan cudurdaar lahayn haddana haddii shilkii u dhacay oo qadartii ilaahay ay timid waxa annagana laga rabay waajibaadka honna saarnaa waxay ahayd inaan dambiilayaashaas aan uga harin meel kasta ay tagaan hadda halkaas waxaa uga jeedaan ciidankii oo hadda saacadan qadaynaya quraac ama qadaam cashada waa xalay sida howlgalka loo galay iyagana waa ku ammaanaynaa annaga waxaana laga rabay marka waxay inaan ka daba tag samayno oo aan dambiilayaasha soo qabanno waa soo qabannay gacantaan ku haynaa sidii hore aan u sheegana insha allahu ciqaab tusaale u noqoto kuwa kale iyay mari doonaa haddii ilaah yidhaahdo insha allahu tacaala arrintaas hadda kadib xil gaar ayaan iska saari doonaa inta hadda shilal dhacday waxaa u badan ayaan qiyaasayaa militariga waxaan kala fadhiisan doonaa taliska militariga arrintaas maadaama dhibaato badan waddooyinka lagu qabo hadda waxaa dhici karta xabadihii waxaa dhici karta maana wayba dhacdaba xabadihii inta hoos loo riday inay dad ku dhinteen oo gacantii muxuu ahaa hay-adaha amniga ay dad ku baxeen si qalada marka waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo inaan arrintaas dhicin sidoo kale waxaan rabaa inaan ku daro inta afhayeenku sheegay ciidanka booliiska waxaan kula xisaabtamaynaa isgoys kasta iyagaa jooga ammaanka gudaha iyaga oo xil saaran meel loo jeedo oo isgoyskaas intaa qof lagu dilo isgoyskaa kale in la iska maro taas waxaan kula xisaabtamaynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddii xabadihii dhaceen oo la arkay in dambiilayaashan ay dadkii shacabka ahaa oo ammaankooda lagu talagalay in ilaaliyaan ay ku xadgudbeen booliiska la rabaa inaanay ogolaan inay dambiilayaasha baxsadaan in waqti intaan la eego kala cusub nooga dhumin booliiskana waxaan leenahay arrintaas inay xil gaar iska saartaan waan idin kula xisaabtamaynaa wixii haddeertaan ka dambeeya aad iyo aad u mahadsantihiin